conversation waa wada hadal lesson 1 cashir koowaad South Africa cashirkan wuxuu ka hadlayaa dalka South Africa South Africa ayuu ka hadlayaa cashirkan waa cashir oo ah advanced level cashir oo aad u horumarsan weeyaan oo laguma talagelin ardayda beginners ka ah ama ardayda intermediate ka waxaa loogu talagalay ardayda advanced ka okay cashirkeena aan si fiican u bilaawano conversation waa wada hadal sheekaysi lesson 1 cashirka koowaad South Africa cashirka wuxuu ka hadlayaa sidaan sheegnay dalkaasi ee South Africa ayuu ka hadlayaa halkan waxaynu leenahay su-aasha ugu horeyso have you ever weligaa studied ma baratay studied ma baratay South Africa dalka South Africa ma baratay yes ayuu leeyahay kan yes it has dalka wuxuu leeyahay ama waxay leedahay it dalka ay u noqonaysaa micnaha magaca markasta lama soo celin karo marka sidaan ayaa la isticmaalay it has wuxuu leeyahay dalka a complex history taariikh aad iskugu qasan isku dhafan micnaha taariikh adag ayuu leeyahay oo taariikh soo jireen oo kol hore jiri jirtay oo aad u adag aad u weyn aad u baaxad weyn aad iskugu dhafan aad iskugu xirxiran ayuu leeyahay isku soo duuduubo taariikh isku dhafan ayuu leeyahay ayay noqonaysaa where is it located xagee ayuu ku yaalaa dalkani where is it located xagee ayuu ku yaalaa at the southern tip southern waxaa weeyaan dhankan iyo koonfurta so waxaan leenahay southern tip koonfurta dhammaadkeeda ama dhammaadka koonfureed of Africa ee dalka Africa at the southern tip waxaan leenahay dhammaadka koonfureed of Africa ee Africa ayuu ku yaalaa what is it known for maxaa loo aqaanaa dalkan micnaha muxuu caan ku yahay ama maxaa lagu aqaanaa what is it maxaa ayaa dalkani known for lagu yaqaanaa markaasaa lahay cultural diversity kala duwanaanshaha ee dhanka dhaqanka micnaha dad badan ayaa halkaas degan iskugu imaadeen kuwii degnaa horaan u degnaa oo dalka iska lahaa dhaqankooda iskuma dhowo under resilience ayaa laqonaa resilience oo dhigta dadka laakiin resilience ayaa leenahay resilience waxay noqonaysaa adkaysiga dadka yacni dadka dhaqankooda uu kala duwan yahay marka hore waxaa leeyahay cultural diversity kala duwanaanshaha dhanka dhaqanka oo aad u baaxad weyn under resilience iyo adkaysigaas ka imaanaya dadka which cities magaalooyinkee oo ah important muhiim which cities are important magaalooyinkee ayaa muhiim ah Johannesburg magaalada la dhahayo and Cape Town iyo magaalada la dhahayo Cape Town waxaa la dhahay Johannesburg and Cape Town magaalada Johannesburg iyo magaalada Cape Town ayaa aad muhiim u ah what language luqadahee spoken ayaa looga hadlaa what language luqadahee spoken ayaa looga hadlaa dalkani South Africa markaasaa lagu jawaabay 11 official language 11 luqado oo rasmi ah 11 waa 11 official waa rasmi language waa luqado markii la tafsiirinayo officialkan dhanka xaggaasuu mari Soomaali markii loo tafsiirinayo waxay noqonaysaa 11 official languages luqado oo rasmi ah ayaa looga hadlaa dalkaasi markaas that is taasi impressive waa cajiib waa wax aad loola yaabo that is midaasi impressive waa cajiib that is impressive midaasi waa cajiib markaasaa it reflects waxay soo jiidanaysaa luqadahan faraha badan ee lagu hadlayo 11 gaarayo it reflects waxay soo jiidanaysaa national unity maxaa waaye isku duubnaanta ee dhanka qaranka national unity waa midnimo qaran midnimo isku duubnaan so it reflects waxay muujinaysaa tan ama waxay soo jiidanaysaa ama waxay ka turjumaysaa so it reflects waxay muujinaysaa luqadaha aadka u tiraha badan national
unity national national unity national unity waxaa weeyaan midnimo qaran national waa qaran wax loo dhan yahay waaye oo bulshada dalkaas dhan ay u dhan tahay unityna waa midnimo it reflects waxay ka turjumaysaa national unity midnimo qaran ayay ka turjumaysaa how is waa sidee the economy dhaqaalaha dalka dhaqaalihiisa yacni waa sidee how is waa sidee the economy dhaqaalaha dalka waa sidee it is dhaqaaluhu developing waa uu horumarayaa steadily si tartiib tartiib ah ayuu u horumarayaa it is dhaqaaluhu developing waa uu horumarayaa steadily it is developing steadily si tartiib tartiib ah ayuu u horumarayaa what maxaa attracts ayaa soo jiito what maxaa attracts ayaa soo jiito tourists what attracts maxaa soo jiito tourists dadka oo dalxiisayaasha ee dalkan imaanaya maxaa soo jiito oo wadamada kale ka imaanayaan what maxaa attracts ayaa soo jiito tourists dalxiisayaasha markaasaa leeyahay wildlife duurjoogta ayaa soo jiidato wildlife waa duurjoogta landscapes waa dhulka sida dabiicigu u yahay ama kala duwanaanshaha dhulka sida meelo waa buuro meelo waa beero ayaa ku yaalo meelo webi ayaa ku yaalo meelo waxay leedahay bad ayay leedahay xeeb meelo waxay leedahay lag ayay leedahay meelo waxay leedahay dudumooyin aad u waaweyn aad u tiro badan meelo buuro waaweyn oo aad u dhaardheer ayay leedahay waxaas ayaa maxaa la landscapes waxyaabaha dabiiciga ee arlada korkeeda ama dhulka korkiisa laga helo soo maxaa la wildlife xayawaanaha oo duurjoogta waa ay soo jiitaan dadka dalxiisayaasha haye landscapes waxyaabaha dabiiciga oo dhulka laga helo waa ay soo jiitaan and heritage iyo dhaxalka waxyaabihii dadkii hore ay ka tageen oo meelaha yaalaan oo meel lagu keydiyey ayaa ayagana soo jiitaa kuwaas markii dadka ay fiirfiiraan ay arkaan waxay noqonaysaa waxyaaba kuwa indhahooda soo jiito marka cashirka intaan aan kusoo koobayna insha allah isku day in cashirka dabagal aad ku samaysaan aad qorataan aad dhegaysataan insha allah daawashadiina aad ugu mahadsantihiin wabilaahi towfiiq